بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما سبتيه او اي احد سو غليسو 8 bisha November sanadka 2025 oo ku beegan 17 bisha Jamaadul Awal sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamid ah dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen oo shaaciyay in ay gacanta ku dhigeen shabakad jawaasiis ah oo ku xiran qol hawlgal sirdoon oo ay leeyihiin sirdoonka Mareykanka Israa'iil iyo Sacuudiga Iran oo shaacisay inay qaadi doonto tilaabooyin jawaab u ah qirashada Trump uu qirtay inuu ku lug lahaa weerarkii Israa'iil ay ku qaadeen Iran bishii June kaasi oo markii dambe Mareykanku uu ku soo biiray Mareykanka oo Israa'iil ku cadaadinaya inay ogolaato in dagaalamayaasha Hamas ee ku xayiran godka ay ka baxaan halkaasi wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Masar oo ka wada hadlay arrimaha Gaza iyadoo Masarna ay jeedisay baaq muhiim ah sheekada ugu dambeysay barnaamijka aridin kugu hayaana waxay ku aadan tahay maamulka Trump oo ku amray safaaradaha dibadda ee Mareykanka in fiisaha ama dalku galka aysan siin dadka burburan ama cayilan maxay tahay sababtu sheeko la yaab leh ayaan idin kuga haynaa amuurtan dhammaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda xuutiyiinta ee caalamku uusan aqoonsanayn iyadoo dhaqdhaqaaqa reer Yemenna horaantii bishii Agoosto ay shaaciyeen geerida ra'iisul wasaarahoodii Ahmed Qalib al-Rahwi iyo qaar ka mid ah wasiirada oo lagu dilay duqeyn Israa'iil ay ka fulisay magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen bayaanka ayaa sidoo kale waxa lagu xusay in guushan amni ee tayada leh lagu gaaray kadib baaritaano dabagal iyo la socod joogto ah oo la fashiliyay qorshayaasha sida hadalka loo yiri cadawga iyo hababka ay u shaqeeyaan kuwa khiyaanada wata bayaanka ayaa lagu sheegay in unugyada basaasiintu ay ururiyeen xog ku saabsan isla markaasna ay la socdeen hogaamiyaasha rayidka ee dawladda xuutiyiinta saraakiisha ciidanka iyo amniga xarumaha ay degan yihiin iyo hawlahooda ganacsiga wasaaraddu waxa ay sii raacisay in unugyadan ay la socdeen kaabayaasha dhaqaalaha Yemen waxaana isku dayeen in ay soo ogaadaan kaabayaasha military iyo amniga meelaha wax soo saarka militariga iyo goobaha laga soo tuuro gantaalada iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee droonka waxaa sidoo kale la sharaxay in shabakadan ay ku lug lahayd daadinta dhiigga shacabka Yemen oo dhowr hawlgallo waa sida bayaanka lagu xusay Mareykanka iyo cadawga Israa'iil ay ka fuliyeen guryaha suuqyada iyo goobaha dadweynaha iyadoo xustay in tani ay tahay xilli uu sii kordhiyo gardarada lagu hayo Yemen si loo joojiyo taageerada loo fidinayo Gaza sida lagu sheegay bayaankan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xuutiyiinta qirashada xubnaha shabakadan basaasiinta ayaa la daabici doonaa isla marka uu dhamaado bayaanka ilaa hadda ma jirto waxa faalla ah oo saddexdan dal ee la xusay bayaankana lagu xusay ay ka bixiyeen arrintan dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ayaa horay u shaaciyay in ay burburiyeen shabakado kale oo lamid ah kuwan waxaana ugu dambeysay bishii May sanadkii 2024 markii ay soo bandhigeen shabakad basaasiin ah oo Yemen ka howlgalaysay oo u shaqeynaysay sida hadalka loo yiri Mareykanka iyo Israa'iil labadii sano ee la soo dhaafay ururka reer Yemen ayaa Israa'iil ka waday weerar ay ku beegsanayaan gantaalo plastiga iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn waxay sidoo kale beegsadeen maraakiibta ku socda Israa'iil ama lagu xiriirinayo ee gooshaya badda Cas markana aynu eegno xaggaas iyo dhanka Iran wakiilka joogtada ah ee Iran u fadhiya qaramada midoobay Amir Saeed Irvani ayaa warqad u diray xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynaha golaha ammaanka waxa uu kaga hadlay qirashada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan doorkiisa ka qayb qaadashada sida warqadda lagu yiri gardarada Israa'iil ee ka dhanka ahayd Iran Irvani ayaa ku sheegay qoraalkiisa in madaxweynaha Mareykanka si cad oo fagaaraha uu qirtay hogaaminta iyo mas'uuliyadda Mareykanka ee dagaalkii 12 maalmood socday oo Iran ay ku sheegtay dagaalkii dambiga ee Israa'iil ay ku qaaday Iran
amiir Saciid Irfani ayaa intaasi ku daray in qarashadan ay si cad u muujinayso ka qaybgalka tooska ah iyo mas'uuliyadda hoggaanka Mareykanka ee qorshaynta iyo ka qaybgalka tooska ah iyo mas'uuliyadda hoggaanka Mareykanka ee qorshaynta iyo fududeynta gardarrada military ee qaanuunka ka baxsan ee ka dhanka ah dalkiisa. wakiilka Iran waxaa sidoo kale xusay in hadalka Trump uu beeninayo hadalkii hore ee xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ee uu sheegay in Washington aysan lug ku lahayn weerarka ka dhanka ah Iran iyo in mudnaantoodu ay tahay ilaalinta amniga ciidamada Mareykanka ee gobolka. Irvani wuxuu ku adkaystay in qirashadan Iran ay siinayso xaq qaanuuni ah oo caalami ah oo ay ku raadsato dhammaan dariiqyada qaanuuniga ee caalamiga si loo hubiyo mas'uuliyadda buuxda ee Mareykanka iyo mas'uuliyadiisa ayna uga dalbato magdhow iyadoo la raacayo heerarka sharciga caalamiga. shalay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Ismaaciil Bakhai ayaa ku nuuxnuuxsaday in qirashada madaxweyne Trump ee ku lug lahaanshaha gardarrada military ee Israa'iil ee ka dhanka ahayd Iran ay muujinayso beenta hadaladii hore ee mas'uuliyiinta Mareykanka isla markaasna ay caddaynayso mas'uuliyadda Washington ee dambiyadii lagu kacay intii weerarkaasi oo socday. وهجاج داود يلا waxay nagu soo fool leh wararkii ugu dambeeyay ee Gaza Ruushka iyo Masar oo ka wada hadlay arrimihii ugu dambeeyay ee la xiriira xaaladda Gaza warbixin ku saabsan Mareykanka oo Israa'iil ku cadaadinaya inay ogolaato inay ka baxaan godka ay ku xayiran yihiin ee dhulka hoostiisa dagaalamayaal ka tirsan ururka Hamas arrintaasi oo Israa'iil si weyn ay uga soo horjeedo www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka wahagaag bal markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xagga Gaza waxaa soo baxaya war la xiriira in Mareykanku ku cadaadinayo Israa'iil in ay ogolaato in godka dhulka hoostiisa ay ku xayiran yihiin ay ka baxaan dagaalamayaal ka tirsan ururka Hamas dalabkan ayaa la sheegaya in uu salka ku hayo doonista xasiloonida xabad joojinta Mareykanka Gaza arrintaasi oo la sheegayo Mareykanku inay si weyn ay u danaynayaan wararka kale hadda soo dhacay Mareykanka Gaza ka imaanaya waxaa kamid ah in Israa'iil lagu wareejiyay meydkii maxbuus askari Israa'iili ah oo muddo lagu haystay Mareykanka Gaza waxa arintani ka hadlay Mareykanka waxaana ay sheegeen in wareejinta Golden Nuclear ado meydkiisa in markaa ay arintaas caawinayso Netanyahu bacdama askarigan lagu haystay ilaa iyo 2014 meydkiisa Mareykanka Gaza arrintan ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa in si weyn gudaha Israa'iil looga soo dhaweeyay isla wararka Israa'iil hadda soo dhacaya waxaa kamid ah wargeyska The Times of Israel ayaa waxa uu tabinayaa in hogaamiye ka tirsan mucaaradka oo lagu magacaabo Yair Golan banaanbax goorlaweyta ka dhacay magaalada Tel Aviv uu ka sheegay in loo baahan yahay laga bilaabo caawa waa sidoo uu yiri dagaal loo galo sidii xukuumaddan meesha looga saari lahaa arrintan ayaa loo arkaa inay tahay suurtagalnimada doorashooyin inay ka dhacaan Israa'iil waxaana warku taasi ku daraya inay socdaan isxulafaysi ay sameynayaan xisbiyada Israa'iil oo la xiriira arrimahani intaynu barnaamijka ku jirnay war sidoo kale hadda soo dhacay xogayaha amuuraha dibadda ee Britain Yvette Cooper ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay dhammaanba wadiiqooyinka gargaarku ka soo gala Mareykanka Gaza in la furo iyadoo sheegaysa inaan loo baahnayn wasidalka u tiriyay in wax xayiraada lagu sameeyo gargaarka arrimaha Gaza ayna ku sii soconay waxa lagu soo waramayaa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil isna inuu ku andacooday inay sii wadi doonaan dadaalada xoogga lagu saarayo in la gaaro yoolka Israa'iil ee dagaalka Gaza waa sidalka u dhigtay isla markaasna ay ka go'an tahay dhammaan in la soo celiyo inta dhiman haraaga iyo midadka maxaabiista Israa'iil waa sidalka u dhigay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Masar iyo Ruushka Badr Abdulcaati iyo Sergey Lavrov ayaa lagu soo waramayaa inay ka wada hadleen dadaalada socda ee Masar ee ku aadan heshiiska xabad joojinta ee lagu gaaray Sharm el-Sheikh iyo hirgelinta dhammaan qodobada waxaana ay adkeeyeen baahida loo qabo in loo gudbo wejiga labaad ee qorshaha oo ay ku jiraan dhinacyada siyaasadda horumarinta iyo arrimaha bini'aadantinimada iyo in la hubiyo in xabad joojintu ay waarto si amniga gobolka loo xaqiijiyo arrintan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadaysaa iyadoo war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar la sheegay in loo baahan yahay in degdeg loogu gudbo wejiga labaad ee heshiiska
xabad joojinta kaas oo la sheegay in uu yahay mid muhiim u ah in la amba qaado arrimaha dhiban arrintan ayaa waxaa lagu soo horamayaa masar inay si weyn u danaynayso inta aan laga doodin arrimaha la xiriira hubka dhigista xamaas iyo iska cabinta falastiiniyiinta in laga shaqeeyo sidii lagu gudbi lahaa wejiga labaad oo loo heli lahaa maamul falastiiniyiintu ay mas-uul ka yihiin oo maraykanka Gaza ee laga hirgeliyo masar ayaa waxaa la sheegaya inay si adag uga soo horjeedo qorshaha maraykanka iyo Israa'iil dhabarka ka riixayeen ee la xiriira in ciidamada la doonay in la geeyo maraykanka Gaza la isku dayo inay hubka ka dhigaan dagaalamayaasha iska caabinta arrintan sidoo kale sidaad kula socoteen barnaamijyadeeni baxay waddanka Azerbaijan ayaa isna diiday inuu ciidamadan ka qayb qaato sababtuna waxay tahay xukuumadda Baku oo sheegaysa inaysan halis gelinayn ciidankeeda isla markaasna ciidamo kaliya ay diri doonto haddii waa sida ay hadalka u dhigayso xukuumadda Azerbaijan heshiis ay gaaraan Xamaas iyo Israa'iil oo si rasmi ah xabadda loo joojiyo dhammaan wadamadan waxay walwal ka qabaan meel Israa'iil waxay ka qaban weyday 24 bilood oo la soo dhaafay in markaa la isku dayo in la geliyo ciidankooda arrintaasi oo cabsi weyn laga qabo xitaa maraykanka laftigiisa wuxuu leeyahay anigu ciidan u diri maayo maraykanka Gaza Israa'iil marka waxa leeyahay meesha ay wax ka tiri weyday 24 bilood oo wax kasta ay isticmaashay iyo awood kasta yaa lagu beemeynaya cid walba way isku arrintaasi fooda way gelin laadahay sida hadda wararka ugu dambeeya ay sheegayaan waa hagaag qodobadaasna waa wararkii ugu dambeeyay dhammaan wixii caawa warna soo gaaray laakiin haatan aynu u bayrno sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawataan caawa waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh maamulka maraykanka ee madaxweyne Trump ayaa safaaradaha maraykanka dibadda uu ku leeyahay waxaa lagu wargeliyay amar lagu farayo loo diiday arrinta marka waxaa leeyahay sidee bay u anfacaysaa dadka ma waxay noqon kartaa faquuq qofka lagu samaynayo jirkiisa iyo muuqaalkiisa iyo sida eebba uu sameeyay marka doodba arrintaas ka taagan waynu arki doonaa wixii ku soo kordhay arrimahaasi inta ayaa caawa ku soo gabagabeynaya barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inuu barnaamijka xiga